بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد. وبعد، نبي صلى الله عليه وسلم waxa uu ummadda u ahaa mid wixii khayrka adduunkeeda ku jiray kiisa aakhiraba u sheegay. waxaan soo qaadanaa insha Allah ta'ala maanta hal xadiis oo uu nabigu sallallahu alayhi wasallam kaga warramayo waxa ay daruuriga tahay in uu bini aadamku u helo. waana saddex arrimood oo qofka saddexda helay adduunka wax uga dhiman oo uu raadiyo oo kale aysan jirin ee ay tahay inuu aakhiradiisa u shaqaysto. حديث أبي الدرداء يعبد بالله المحسن أي سور نيان نبي صلى الله عليه وسلم وحوليه هي من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كور رميا كو قفك كنا بدقلا وآمن كنا غضا gurigiisa iyo ehelkiisa iyo inta uu dhex joogo nabadgelyo ku haysta. soona waa bariista qofkaasi isagoo oo caafimaad qaba oo aan wax xanuuna oo uu ka cabanayay aysan jirin. maalinka wixii uu qudan lahaa oo ku filan haysta, adduunyo ka dhiman oo ka maqani ma jirta ay nabiga sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay. waxyaabaha saddexda ah ee daruuriga ay tahay bini aadamku inuu helayo waa kow, horta inuu qofku nabadgelyo helo oo uu nabadgelyada waxa dareemi karaya nicmadeeda iyo wanaageeda waxa dareemi karaya cidda ay ka maqan tahay. marka waa daruuri bini aadamku inuu nabadgelyo helo si uu u noolaado. waxa kale oo isaguna daruuri ah qofku inuu caafimaad helo oo uu caafimaad qab si uu u shaqaysto oo uu hawlihiisa adduun iyo kuwiisa aakhiraba u qabsado. waxa kale oo iyaduna laga maarmaan ah inuu qofku quud iyo wax uu ku noolaado uu helo. marka nabadgelyo waa khasab qofku inuu helo, hadii kale adduunyada maxan iyo imtixaan iyo waxyaabo fara badan baa la marinaya, waxyaabo fara badanna way dhaafayaan. waxa kale oo iyaguna daruuri ah qofku caafimaad qabka waxa dareemi karaya nicmada caafimaad qabka cidii xanuunsanaysa oo laga yaabo adigu inaad caafimaad qab ku soo toosto, dad baa sariir saaran, dad baa si kale u xanuunsanaya oo dhibana ah. cunto iyo quud iyo qofku waxa inuu helana waa laazim, oo dad fara badan baa jira oo aanan waxa ay gaajadoodaas ay u isticmaalaan ama ay gaajada iskaga biyaan aan haysanin. marka nicamta Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ina siiyay in la gartaa loo baahan yahay, laguna shukri noqo. hadhowna Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa uu ina weydiin doonaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.